waxasaaka aroornimadii hore si rasmi ah uga bilaabantay degmada Garadag ee gobolka Sanaag doorashada codbixinta madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo si lamid ah ay uga bilaabantay dhammaan deegaanada hoos yimaada degmada Garadag oo TV-ga caalamiga ah oo Cable TV u kurgalay sida ay u codeynayaan shacab weynaha ku sugan deegaanadaasi sida deegaanka Wargumbi Fadhigaab Sincaro Faraguul Doobacantu Gudheeli Fadhiyar Gawsaweyne Turbi Shiisha Talagsharka iyo deegaano badan oo kale waxayna dhammaantoodba uga socotay si habsami ah halka qaar badan ay ku soo gabagabowday jawaad u degan iyo xaalad nabadgelyo waxaana intaanu kormeerkaasi ku guda jiray ka warbixiyay maayirka degmada Garadag taliyaha ciidanka booliska ee degmada Garadag iyo qaar kamid ah oday dhaqameedka iyo shacab weynaha codka bixinayay waxaana hadaladoodii kamid ahaa maalintii loo asteeyay codbixinta doorashada madaxweynaha waxaan wadanahay maamulka degmada Garadag waxaan uga bilaabnay codbixintii dhammaanba goobihii deegaanka si nabadgelyo ay uga socotaa dhammaanba 29 goobood oo ku socdo codbixinta ay ka socotoba waxa weeye qaarna waanu markay qaarna waanu mari doonaa qaar hadeeraan joognaa dhammaantood waxa weeye waxay uga socotaa si nabadgelyo ah dadku si fiican bay safaf ugu jiraan si wanaagsan ayay u codeynayaan qof waliba xisbiga doonaya ayuu u codeynayaa si wanaagsan nabadgelyo ayuu leeyahay ugu jiraa aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dadka reer Garadag ee dhammaan guud ahaan dadka gobolka Sanaag iyo Somaliland sida wanaagsan nabadgelyada ay ugu codeynayaan waa goobta Fadhigaab Garadag waan soo marnay waxaan mari doonaa Sincaro Faraguul Gawsaweyne ilaa iyo intaan ku gaadhno baan soo mari doonaa wax shaqaaqa meel laga soo sheegin intaan marnay inta kale waraysanay marka boqolkiiba boqol weey si wanaagsan bay xaalad u socotaa salaamayna salaada badeed si fiican bay noogu socotaa oo habaysan oo aan caab lahayn dadkuna waa tiro badan yahay ilaa iyo labada haduu doono waa gaari karaa ya waa in sida hadii lagu wada oo dadka adinaha la socotaan saasay naarta insha Allah karim Faraxa Cabdi Nuur telefishinka caalamiga ah oo Cable TV degmada Garadag